madaxweynaha Somaliland oo guddi u saaray wasiirada xiisada gobolka Sanaag ka taagan gaar ahaan isku dhaca labada beelood ee Waqdariye iyo Shidan oo markan la doonayo muddo bila inay wasiiradu halka fadhiyaan. Booliska Somaliland oo xabsiga u taxaabay nin dhalinyaro oo magaciisu yahay Cabdiballi Mataan oo lagu haysto markan muuqaal uu duuba iyo falcelin uu sameeyay dhanka madaxweynaha Iran oo sheegtay inay qabqabatay tiraba 4 qof oo loo haysto loogana shakisan yahay inay yihiin sirdoon u shaqaynayay shisheeyaha ay markan is hayaan. Finland oo ku dhawaaqday inay meesha ka saartay xeerkii u diidayay samaysashada nukliyeerka suurtagal ay tahay imika inay u dhaqaaqdo dhankiisa. Qodobadan ayaynu ku soo qaadan doonaa warbixinteen. Iran ayaa sheegtay inay xabsiga u taxaabtay tiradada oo gaadhaya 4 qof kuwan oo eedeysanayaal u ah inay yihiin sirdoon iyo basaasiin kadib markii la helay macluumaadyo ay ku kaydiyeen moobiladooda iyo kamarado gaar ah oo ay ku duubayeen gudaha Tehran. Tanoo Iran iyo saraakiishu sheegeen inay aaminsan yihiin inay xogo basaasnimo u gudbinayeen geeska cadowga ay hayaan Israa'iil iyo Mareykankuna markan ay yihiin shaqaale iyo sirdoon uga shaqaynaya gudaha Tehran. Waxay sheegeen tallaabooyinkan iyo baadhistan inay sii socon doonaan dagaalka la dagaalanka sirdoonka iyo mukhaadaraadka qarsoon ee markan xogaha u gudbiyay labada gees kastaba waxa ay Iran kula jirtay dagaal adag. Baryihii ugu dambeeyay qaarkood waxay ku filisay xukunno dil iyo daldalaada qaar ayayba ku xidhay gantaalo ay u dirtay geeska ay u arkaysay markan inay u shaqaynayeen. Waxay sheegtay 40 qof imika inaanay caddayn dhabi jirin balse baaritaanka ku socda ay ku soo bixi doonaan natiijooyinka dhabta ah ee la wadaagi doono bulshada reer Iran. Sidoo kale waxa ay dowladda Iran iyo madaxda goobta ka hadashay uga mahadnaqeen bulshada reer Iran sida ay isku berber taageen dowladooda mudaharaadyada iyo diidmooyinka adeega ay u sameeyeen damaca geeska kale ee ahaa markan inay ka soo horjeestaan dowladooda iyo diidista ay u sameeyeen arrinta. Madaxweynaha Somaliland ayaa guddi wasiirada u saaray xiisad iyo xaalad ka taagneyd gobolka Sanaag iyo dhacdo isku dhac oo sababtay in laba beelood iskacma saaraan taasoo ay ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac. Deegaanka Waqdariye dagaal dhawaan ka dhacay oo dhex maray laba beelood oo ka tirsan beelaha degan gobolka Sanaag si arrinta loo dhameeyo xal waara iyo nabadgelyo loo helo. Madaxweynuhu waxa uu saaray guddi wasiirada oo gobolka Sanaag iyo goobta ay imika colaadu ka dhacday fadhiyi doona muddo bila gogasha nabaduna ay muddo halkaa ooli doonto ilaa xal waara oo kama dambaysa laga gaadho arrintan aanay ka iman doonin guddida loo saaray. Ugu dambeynna xalka iyo go'aanada ugu dambeeya soo bixi doonaan dhammaadka gogasha iyo marka ay ka soo baxdo natiijada ugu dambeysa oo dowladdu aaminsan tahay inay tahay tallaabo soo afjaraysa markan khilaaf kasta iyo weliba wax kasta oo u muuqanaya in mashaakilka ay sii hurin karayeen. Waana sababta loo doorbidayo muddo intaa leeg iminka in la siiyo si loo soo afjaro xiisada iyo xaaladda halkaa ka taagan. Booliska Somaliland ayaa xabsiga u taxaabay nin dhalinyaro oo magaciisu yahay Cabdiballi Mataan kaasoo kusoo caanbaxay safar uu dalka dib ugu soo noqonayay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Xilligaas oo uu airport-ka hortiisa ka yidhi hadallo si weyn u qabsaday baraha bulshada oo ahaa abti waan maqnaa oo waxaan ku maqnaa Balli Mataan ee inan yari kuma xabadeeyeen. Ugu dambeynna waxaa xilliga la kulmay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku casuubay gurigiisa maalintii ku xigtay. Tan iyo xilligaana ninkan dhalinyaradii waxa uu ku sugnaa gudaha caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Daraad ayuu soo duubay muuqaal uu ku canaananayo xukuumadda. Ugu dambeynna waxa uu sheegay madaxweynaha Somaliland waxyaabo badan oo horyaalla xilligan xukuumadda iyo dowladda in loo holan waayay halkooda, sidaa darteedna ay suuragal tahayba markan in madaxweynaha ay la gudboon tahay inuu iscasilo, isagoo u soo jeediyay madaxweynaha Somaliland inuu iscasilo oo uu kursiga iyo xilka u baneeyo ninka saari kara ama ka samata bixin kara xaaladda dalka hadda, isagoo sheegay soo noqnoqoshada xiisadaha adag ee dhaqaalaha iyo sida oo kale dhan kastaba marka aad ka eegto nolosha inaanay ahayn xilligii madaxweynahan. Hadalkan ayaa keenay markan in lagu xiro magaalada Hargeysa. Dad badan ayaa u arkayay hadallada iyo muuqaalada uu duubo kuwa uu ku raadinayo falcelin ka badan tii uu kala kulmay airport-ka Hargeysa maalintii uu hadalka ka yidhi saxaafadda. Wax kastana uu u gelayo sidii falcelin iyo saameyn adag uu heli lahaa, isagoon xitaa fahansanayn nidaamka iyo hanaanka dowladnimada halka loo wado iyo weliba
halka xilligan loo socdo. Hase ahaatee waxa uu isagu muujiyey dareen ahaan inuu isku dhigo xilligan si kasta oo uu follow iyo view ku heli karo inuu sameeyo. Waxa uu furtay bog Facebook oo uu ku soo baahiyey aragtiyihiisa kala duwan. Dhowaan ayay ahayd markii lasoo bandhigay muuqaal uu bakoorad la dhex cararayo garoon ku yaala degmada Maxamed Mooge oo uu sheegay taageerayaal goobta fadhiyey inay si gaar ah wax uga sheegeen shaqsi uu taageero, isagoo sheegay dhammaantood inuu bakoorad kaga caanamaali doono. Booliisku haddaba shaqsiga aynu ka soo sheekaynay ayaa caawa ay ku xidheen magaalada Hargeysa, isagoo loo aaneynayo xadhigiisa inay sabab u tahay uun xilligan hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha inaanay xilligani ahayn xilligiisii ee uu isxasilo. Wixii waray ka soo baxana waxaynu ku wadaagi doonaa barnaamijyada dambe. Markana Finland ayaa ku dhawaaqday inay ka saartay meesha xeerkii ka xadidayay samaysiga hubka nukliyeerka iyo in bambooyinka hubka nukliyeerka la keeni karo dhulka Finland, oo markii hore sharci cad oo ay kala ahaayeen uu si cad u diidayay, kaasoo xakameynayay Finland in hub nukliyeer dalkeeda la keeno, xitaa dal ay saaxiib la tahay haddii uu leeyahay madaxyo nukliyeer. In la keeno Finland waxay ahayd mid adag maadaama ay xeer adag ka lahayd. Ugu dambeynse waxay sheegtay xeerka inay ka takhalustay markii ay eegtay wax badan. Hogaamiyaha Finland ayaa ku dhawaaqay in la gaadhay waqtigii Finland dib wax iskaga weydiin lahayd kobcinta awoodeeda iyo weliba xooggeeda, iyadoo sheegtay marka la eego hadda dunidu sida ay u socoto in laga tegay waqtigii dimuqraadiyadda iyo weliba sida oo kale is-ixtiraamka qarannimada, madax bannaanida iyo wax kasta oo loo arki karayay hannaanka dowladnimada. Iyadoo Finland sheegtay iyadoon cidna ku dhibaateynayn imika inay u hollan doonto halka samaysiga hubka waxgumaada ee nukliyeerka oo ay ku difaacan doonto cirdiga iyo sharafta dadka reer Finland. Hadalkan ayaa yimid xilli ay socoto xiisad xasaasi ah oo u dhaxaysa Iiraan, Israa'iil iyo Mareykanka oo isku dhinaca, waxaanay sheegtay Finland hadda in iyaduna u hollan doonto samaynta. Finland ayaa ka mid ahaa dalalka saxeexay xeerka atomikada oo aan markan suuragal u ahayn si fudud inay u samaysato, balse waxay sheegtay dariiqo kasta oo ay u mari karto xasiloon inay u mari doonto si ay u hesho hubkaas, oo ay sheegtay markan isticmaalkiisu inaanu muhiim ahayn, balse uu muhiim u yahay in cirdigaaga iyo dowladnimadaada, dadnimadaada iyo weliba jiritaankaaga uu yahay deyr adag iyo xayndaab lagaga weecan karo. Finland haddii maanta aragtida ay istusayso iyo weliba sida oo kale damaca iyo doonista, waxaa la odhan karaa waxa ku riixay laba aragtiyood oo ay kala kulantay Mareykanka: doonista Greenland, faragelinta Iiraan gudaheeda iyo weliba soo qabashada madaxweynihii Venezuela. Arrimahan oo dhanina waxay muujiyeen Finland imika diyaar inay u tahay inay ka diyaar garowdo xaaladaha adag ee ay kala kulmi karto geeska Mareykanka iyo cid kasta oo markan ka aragti duwanaata Mareykanka sida uu faragelinayo. Si aanay taasi u dhicin, markan loo baahan yahay Finland quwad leh, awood leh, weliba diyaar u ah inay iska celiso cid kasta oo markan kusoo xadgudubta qarannimada iyo madax bannaanida Finland.